dowladda Soomaaliya ayaa diyaarisay qalab iyo ciidan gaar ah oo loogu talagalay inay soo dejiyaan diyaarad drone ah oo habeenadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho meelo kamid ah lagu arkay gaar ahaan aagga madaxtooyada qaranka. Warbaahinta Soomaalida iyo dadka isticmaala baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan u qoray diyaaradaasi drone ah oo la sheegay inay dhanka al-shabaab ka timid sidoo kalena ay qaraxyo ku xirnaayeen waxaana la maqlay rasaas xoog leh oo ay ridayeen ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ee loo yaqaan Koofiya Casta. Xalay qaybo kamid ah madaxtooyada Soomaaliya waxa la geeyay qalab iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan militariga gaarka ah ee commandoska Soomaaliya ee darab ee Mareykanka ku tababaray. waxaana xogta aan helnay tilmaamaysa in dawladdu ciidankaasi u diyaarisay iyo qalabka ay wataan in diyaaradaasi la soo rido ama la qabto iyo sidoo kale in madaxtooyada Soomaaliya laga dhigo aag aysan dul imaan karin diyaaradaha drone-ka ah si la mid ah xarumaha dawladda qaarkood sida airport-ka Muqdisho oo aysan diyaaradaha drone-ka dul tagi karin iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo la sheegay ayadana inay ammaan tahay oo aysan diyaarad drone ah dul tagi karin. kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in sida xuutiyiinta Yemen oo kale inay heleen diyaarad drone ah laakiin lama oga tayada diyaaradahaas baaxadda weerarka ay geysan karaan laakiin ama xogta aan helno waxay tilmaamaysaa inay yihiin noocyo kamid ah diyaaradaha beeraha lagu buufiyo ama diyaarado yar oo drone ah kuwaas oo ay kooxdu ku xireyso bambooyin ama qaraxyo kadibna ay rabto inay ku weerarto meelaha muhiimka ah oo ay degan yihiin madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. al-shabaab markii laga adkaaday oo magaalada Muqdisho ay soo gali waayeen sidoo kalena furmaha dagaalka looga adkaaday waxa ay markaa isku dayayaan inay la yimaadaan tactica cusub oo ay weerar ku geystaan waana sababta keentay inay isku day dhinaca diyaarad ah oo drone ah ay fuliyaan diyaaradaas oo ah nooc yar oo ay rabeen inay qaraxyo ku geystaan laakiin ciidanka dawladda ayaa markii labaad waxa ay weerar ku qaadeen ama ay rasaas ku rideen diyaaradaas oo dul heebaabaysa meelo u dhow madaxtooyada Soomaaliya wax ka badan 2 sano oo ay dagaal ka dhana kooxda al-shabaab si toos ah u socdeen waxa suurta gashay in militariga Soomaaliya iyo ciidamada kuwa deegaanka ay qabsan dhul balaaran oo ku yaala gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya sidoo kale magaalada Muqdisho ayaa lagu adkaaday kooxda oo shabakado badan ay ku lahaayeen la burburiyay iyadoo ay magaalada soo gali waayeen taasoo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay Muqdisho aysan wax dhibaato ka dhicin magaaladan ay gashay jawi isbedel nabdoon ah al-shabaabna waxay u raadinayaan dhiig ay daadiyaan weerar ay geystaan iyo burbur ay magaalada u geystaan waana sababta keentay inay qorshahan cusub ay isku dayaan taasoo dawladda Soomaaliya hadda ay xal u raadinayso. dhinaca kale ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee macawislida loo yaqaano ayaa guulo waaweyn waxay ka gaareen dagaal dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka socday deegaano ku yaala webiga Jinkiis ee degmooyinka gobolka Hiiraan gaar ahaan Bulo Burde ee gobolkaasi. xogtaan helno waxay tilmaamaysaa in ciidamada macawislida oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka saareen deegaano ay soo galeen kooxda al-shabaab oo ku yaala dhinaca webiga Jinkiisa ee gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada loo yaqaano Beerayabaal iyo sidoo kale Jicibow iyo tuulooyin kale halkaas oo dagaalo qaraar oo ay ka dhaceen ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku qabsadeen hub sidoo kale lagu dilay dagaalamayaal al-shabaab. xogtu waxay tilmaamaysaa in sidoo kale xubnaha al-shabaabka ah ee la dilay inay ku jiraan koox ajaanib ah oo al-shabaab ka barbar dagaalamayay ciidanka dawladdana waxa ay sifeeyeen iyo kuwa deegaanka weeyaane waxa ay sifeeyeen dhulkii muhiimka ah oo ay kooxdu gudud ka qoteen oo ay isku dayeen in halkaas difaac ka dhigtaan dhammaan militariga Soomaaliya waxay sheegeen in cagta la mariyay oo hadda ay tahay Bulo Burde deegaanada hoos yimaada ammaan ciidanka dawladda iyo kuwa macawislida ay joogaan qorshuhuna uu yahay in loo gudbo halka ay ka soo gudbayaan kooxda oo dhinaca kale oo webiga ah. ciidankii adana sugidda sirdoonka qaranka iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa halkaas ku sugan. taliyaha hay'adda sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulurshe iyo taliye ku-xigeenka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha ciidanka dhulka ayaa halkaasi tagay waxa sidoo kale howlgalka hogaaminaya gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo qayb ka yahay gudoomiyaha gobolkaasi Muuse Salaad Weheliye iyo madax kale ayaa howlgalka qayb ka ah. guulo waaweyn ayaana laga soo hooyay howlgalkaas welina waa u socdaa wixii warar ku soo kordhana waxaan idinku soo gudbi doonaa wararkeen iyo barnaamijyada dambe insha Allah. markana waxaan eegaynaa dawladda Soomaaliya ayaa gurmad waxay u fideysay Puntland iyadoo duqeyn xoog leh oo la beegsaday deegaano ku yaala buurleyda gobolka Bari oo ay ku sugnaayeen al-shabaab waa Daacish ay dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka iskaashanaya ay burburiyeen. war ka soo baxay Mareykanka Africom ayaa waxa lagu sheegay iyaga oo kaashanaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in duqeyn ay ka geysteen gobolka Bari deegaano ku yaala dhulka buurleyda halkaas oo ay ku dhumaalaysanayaan hogaamiyaal ka tirsan kooxda Daacish
oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee Puntland dagaal culus ay kula jireen. warka Africom waxaa lagu sheegay in lagu burburiyay saldhigyo muhiim ah oo ay Daesh ay lahayd. sidoo kale waxaa lagu sheegay in la dilo hogaamiyaal sare oo kooxaas ka mid ah. xalay fiidkii hore ilaa 10kii habeenimo ee xalay ayay socotay duqeynta, waxaana diyaaradaha duqeymaha geystay ay kasoo durkaceen marka badda taagan. waxaa la sheegay inay ahaayeen diyaarado uu ku xiran yahay hub culus, dhawaaqana meelo badan ayaa laga maqlayay, waxaana la burburiyey godad dhulka hoostiisa ah oo ay la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayeen hogaamiyaasha kooxdaasi. Africom weli ma aysan sheegin tirada ay dileen, magacyadooda iyo xilka hayeen, laakiin waxay warkooda ku soo koobeen in la baabi'iyey xubnihii Daesh mas'uuliyiintoodii. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter waxa uu ku sheegay amar uu bixiyey in lagu duqeeyey goobo ay Daesh deganaayeen, hogaamiyaal badanna lagu dilay. Puntland dhankeeda war ay soo saartay waxay sheegtay in iyada oo kaashanaysa Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta inay duqeymo ka fuliyeen, howlgalkiina uu sii socdo wejiga labaad ee dagaalkana la galay. Mareykanka waxa ayagana dhankooda sheegeen ayagoo kaashanaya dowladda Soomaaliya in duqeymo culus ay geysteen inay ku baabi'iyeen kooxda Daesh. warar ay ku soo kordha dhammaan dagaalada iyo duqeymaha iyo howlgallada dalka Soomaaliya ka socda waxay idinku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyada dambe haddii Allah uu dalo idmo. adina aragtidaada qaybta safaalada noo reeb muuqaalkan si share garay aad iyo aad u mahadsantahay.